munaasabad si ballaaran loo soo agaasimay islamarkaana lagu weyneenayay dhalashada nabigeena Muxamed calayhi salaatu wasalaam kana soo qayb galeen culimo diin iyo shacab badan ayaa ka dhacday magaalada caasimadda labaad u ah dalka Sweden ee Göteborg waxaana munaasabadan lagu weyneenayay dhalashada rasuulkeena Muxamed nabadgelyo iyo naxariis dushiisa Allaha yeele dadkii ka soo qayb galay oo badnaa waalidiin iyo caruur kuna dhaqan magaalada Göteborg isla markaana si wacan u dhageysanayay muxaadarooyinkii kala duwanaayay culimadu ay soo jeedinayeen una badnaa noloshii iyo dhaqamadii nabigeena Muxamed calayhi salaatu wasalaam lagu weyneenayo rasuulka xuskiisa ay yihiin kuwo sharciyan banaan loona baahan yahay ummadda islaamka inay u tartamaan jaceylka rasuulka oo la sheegay in uu ku xiran yahay midka alle ka rasuulka in la jeclaado naxariis iyo nabadgelyo korkiisa Allaha yeele waxayna xafladu u dhacday sida tan من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون الحمد لله رب العالمين إمام المتقين وقائد القر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إخوة الكرام رقية هوانبا علماء عامبا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عاوحان هل كان السجنمي وينينت النبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه إيا إنان إسبرنا تاريخ دي رسول كنغا إلهي نوغسو دي بيدين تان شرفت بدن وحان إن شاء الله عاوة أن آد إساقدر جندونا إن شاء الله تعالى أولا تاريخ دا النبي صلى الله عليه وسلم iyo waxyaabihii diinta islaamka bilowgeedii ilaa maanta aan joogno wixii lagu soo maray ee taariikh ahaa wixii aan ka gaaro ya ahbab rasuulillah ilaahay rasuulkiisa ku jeclaaya oo ku soo dhawaada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam jacaylkiisa iyo maxabadiisa xafladii lagu weyneynayay nabigeena dhalashadiisa sallallahu alayhi wasallam nabigeena calayhi salaatu wasalaam hameenkana la dhalay ma ahan inuu nooga darmado hameynada kale oo caadiga ah maxaa yeelay ilaahay wuxuu noo xasiliyay nicmo weyn oo adduunkeena iyo aakhiradeennaba ina anfacaysa rasuulkeena ammaantii marka la ammaanay haddii naloo aqriyo ammaantu waxay ka sheekaydaa markii la fasiro waa rasuulka tilmaantiisii waa nabiga quruxdiisii waa nabiga muuqaalkiisii waa nabiga akhlaaqdiisii waa nabiga dabeecadiisii waa nabiga calayhi salaatu wasalaam mucjizooyinkiisii waa nabiga siiradiisii markii la aqriyo oo aragto iyadoo ammaantii la aqrinayo wax cusub maahan dadka dhagahooda waxa ka baratay walaalayaal misalada dhageysta waxa la yiraahdo wax kasta shayga la sheegaba in la yiraahdo shayga waa bidco shayga la sheegaba waa bidco قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها wadayaal waxaa hulkani ku soo dhamaaday xaflad aad u qiimo badan taasoo lagu xusayay nabigeena Muxamed calayhi salaatu wasalaam xafladatan ayaa waxaa ka soo qayb galay dad aad u fara badan isla markaasna ku dhaqan magaalada kan ee Göteborg ee caasimadda labaad ee dalka Sweden muxaadaradan ayaa waxaa iyaduna sidoo kale ka soo qayb galay culimo aad u waaweyn kuwaasi oo kula dardaarmay ummadda muslimiinta ee ka soo qayb galay iyo inta kale guud ahaan caalamka dusheeda saaran inay rabbi ka baqaan isla markaasna si weyn u weyneeyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam taariikhdiisana bartaan maxamed yaasin xaaji kalsan TV magaalada Göteborg dalka Sweden